qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa si adag uga soo horjeestay xeer hoosaadka golaha oo saaka la ansixinayay. waa duuduub baa lagu ansixiyay. waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer somaliland ee mudanayaasha soo doorteen inay soo celiyeen habdhaqankii xumaa ee xaaraanta ah ee duuduubka la oran jiray. kaasi waa qodobka labaad. waa kan xeer hoosaadkii waad ogtihiin 2 toddobaad baanu aan hawshan laga shaqaynay. xeerkaasi gudihiisa weli waqti lagu akhriyo xitaa 5 minutes qof xildhibaanku mudano siiyo fursad lama siinin. khaladka ugu weyn ee imika golaha ku jirana xeerkaasi waa xeer hoosaad golaha qaranka ee wakiilada. xitaa tusmo male dadka akhrisanaya ay ku gartaan cutubka iyo qodobka ay doonayaan ku tagaan. waxaan rajaynayaa markaan akhrino inay ceebo kale ka soo bixi doonaan. golahani wuxuu lahaan jiray ceebo ayuu lahaan jiray lagu yaqaano oo maalintii dhawadna golaha ka dhacay oo ahaa in xeer hoosaadka ka baxaya golaha qaranka ay bareen wax looga bedelo oo shakhsiyaad shaqaalaha ka mid ah iyo dad kale ku danaystaan oo xeerka wax laga bedelo. marka arrinta darteed baan uga aamuso aan u diiday oo xeerka ugu codayn waayay. saxaafadda madax bannaan aad iyo aad buu maasan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. gacanta lagu hayay si gaar ah xildhibaano saaxiibadaya oo muddo badan gacanta ku hayo dhowr iyo 10 goluna waa ka dooday. marka runtii xeer aad loo lafaguray buu ahaa oo aad looga naaqshay seek waxa uu oran karaa in qodob loo ansixiyo oo duuduubka laga daayo qodob loo ansixiyo taasay ahayd. halkaasaan anigu kulli qolada duuduubka diiday baan ka mid ahaa sida kale xeerka waan u waafaqsanaa in qodob la isu dul taago qodob loo ansixiyo oo aanay golaha calaamad iyo sumad u noqon xeer la keeno walba in duuduub lagu ansixiyo marka dambe taasaan insha Allah aan diiday anigu aan ka coday. waayahay qodobadii ay mudanayaashu dooda ka keeneen xilka qaadista gudoomiyaha oo kale maxaan ku raadayay maamuuska loo sameeyo madaxweynaha qodobada ma lagu soo daray xeerka. waxa lagu daray qodobada xilka qaadista gudoomiyaha iyo labada ku xigeen oo ku jira oo ragga qaarna aaminsanayeen 42 la keeno ragga qaarna 3 meelood oo meel. marka waxa lagu ansixiyay 3 meelood oo meel 5 baa lagu ansixiyay. tii xilka qaadista madaxweynaha xeer hoosaadkan horyaalay waxa loo saaray 15 nin guddi ah 15 nin oo ahaa ka kooban garyaqaano iyo aqoon-yahano oo ahaa raggii ugu mudnaa golaha baa loo saaray. markii ay nagu soo celiyeen kadib dood dheer baanu ka galay qodob baanu mataqaanay si dul taagnay. waxaa codkooda markii dambena doodooda ka dhiibtay 42 xildhibaan. sidaa darteed maanta ayaana la hor keenay maadaama qaranku shaqo badan naga sugayo waxina inay yooyaatan iyo nin walba yahdo waxaan ka hadlayaa iyo soo celcelin aanay ku koobnaanin shaqadii qaranku noo igmaday dadkuna noo soo doortay la dhaxgalo awgeed waxa maanta goluhu isku raacay in la ansixiyo. waa dareemaysaa aqlabiyadda lagu ansixiyay waxa diiday 4 qof inta kalena way ogolaatay. marka kulli waxaan u maleynayaa goluhu sharcigaas xeer hoosaadka iyagu sidaas ansix ku yahay wax dhaliil ah oo soo jeedinayo oo aan gaarina ma jiraan. waana xeer hoosaadkii golaha iyaga anaga aan isku dhaqaynay weeyaan 5 sanadood ee soo socda. qofkii doonaya saluugsani waxa uu furan inuu soo jeedin keeno oo mataqaana xildhibaanada qaar intuu ku hayso soo jeedin keeno kadibna dib baa looga doodi wixii jecel yahay haddii markaa uu aqlabiyad keeno dib baa looga bedeli doonaa. laakiin waxa hadda maaragtay waqtiga naga lumiya inaanu noqon wixii laga sugayay iyo shaqadiina laga sugayay aanu dhaxgal awgeed baanu ugu ansixinay sidaa duuduubka ah maadaama oo aanu 25 maalmood haysanay ilaa xildhibaano gaadhaya 60 xildhibaan ku dhowina ay doodooda ka qayb